caqabadaha iyo fursadaha uu wajahayo dalkan. Inkasta oo Djibouti ay leedahay dhaqaale koraya, haddana caqabado badan ayaa hor yaalla oo ay ugu horeeyaan shaqo la'aanta dhalinyaro badan, sare u kaca qiimaha korontada iyo nolosha, deymo badan oo laga qaatay Shiinaha iyo bangiyada caalamka. Balse sidoo kale dalkani waxaa ka jira fursado aad u ballaaran, sida ballaarinta dekedaheeda iyo samaynta goobo lagu dalxiiso, ka faa'iidaysiga marinka ganacsi, iyo sidoo kale xasilooni siyaasadeed oo ah waxa dalalka deriskeeda ah sida Soomaaliya, Itoobiya iyo Suudaan aan laga haysan. Waana fursad qaali ah oo ay dheer tahay dalalkan kale. Djibouti waa tusaale muujinaya sida dal yar uu u noqon karo mid leh saameyn ballaaran iyada oo aan lahayn kheyraad dabiici ah, haddana waxay ku guuleysatay inay noqoto xarun caalami ah. Qof kasta oo Soomaaliyeed waa inuu barto taariikhda iyo muhiimadda Djibouti, sababtoo ah waa dal Soomaaliyeed iyo walaal Soomaaliyeed, lagana yaabo inay ku rumowdo aragtida Soomaali weyn. Cid aadan garanayn lalama midoobi kara